laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed uu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yiri inakeen baratanne waxaa soo inaan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddo la joogay maalin dambe oo dal safar la joogay buu yiri Aisha maantana waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yiri ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaat oo ina tiirayda fududayd ma aha sidii hore way iska bedeshay dabeetana uu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yiri tilka bitilka taati uu turbu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi midkeen baa arki kari lahaa isaga haweenaydiisu intay dabada u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suurada ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ah bashariyada cidii loo soo diray inuu hago ilaahay baa wuxuu abuuray kuwa jecel subhanahu wa ta'ala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhaqama ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida ogeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamidee kunya bay leeyeen ana kunyo Abdullaahi buu ugu yeedhay Imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray ya Aisha magaco bad la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayaa inuu yahay qaab mashaacirta la ilaahay Aisha inan yara xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tiri nabigu isu taago dhinaciisay xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan idhaahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabin waxaan rabay bay leedahay suu nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadiiskii Tirmidhi Albani sahih ku tilmaamay waa idinku fiican kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad يعني مفتاح السعادة الزوجية وشركة reerku nin iyo gabadh isku darsadeen shirkada raasumaalka hantida rasmiga ee haystaan ay ku tijaaraynayaan baynu dhawaal xub oo halku ka bilaabo maftaha kani mafaatiixdu waa ilka badan bay leedahay waxay tilmaamaan culimadii kamida at-taqaadi in isxisaabinta badani taziid al-masaafaat wa bu'da in la isudul qaato waxyaabo badan isha laga rogo si kalgacalku uu beernaado waxaan ku soo koobayaa guriga muslimka ah waa guri kalgacayl iyo isu uurfayo baan ku nool waa guri naxariis iyo muamaladii fiicnayd ee nusuusta quraanka iyo xadiisku sheegaysa ihsaan iyo isaar iyo wanaag oo soo dhan jira cadaalad iyo raxmo iyo waxa quraanku sheegayo dhan way waa meesha la rabo in lagu barbaariyo ubadka bulshada u soo kacaya oo ubadku inuu guriga ka yimaado isagoo yaqaana macna al-hub iyo dadka kalgacalka loo haynayo naxariista cadaaladda nimirsanaanta afwiga tasaamuxa kullu dhalika nusuusta quraan ee tirada badan la sheegayso ee lagu yiri dadka kala kula dhaqan waxa awla u ah ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaa haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay isku tihiin buu arigiisa saata waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeelaba ilaada yani wax kasta in raali galiyaabaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caanka ah takabbur bay dhahdaa iyo al-kibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxa yar samayso lagu yeesayaad hoos u soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan al-cinaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku guumaysanaya aad wax iska dhicisid laakiin guriga dhabtahay waa guriga labada midna oo ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacad dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi Muhammad tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi Muaad ibn Jabal markuu Shaam iyo Meelaan ka yimay uu arkay qolo boobabkood
culimmadoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yidhi adnaanu kuu sujuudno oo isku dayey wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysaa waa maxay qisadii buu u sheegay nabigu wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhi haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa loodhan lahaa raggiinna u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq